بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markay dhageysatay war murtiyeedka ergooyinkii shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug markay aragtay baahida loo qabo in dadka reer galmudug wada dhistaan dowlad goboleed ay u dhan yihiin markay tixgelisay soo jeedinta guddigii qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug iyadoo baraarugsan in uu si guul ah ku soo dhammaaday shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug lana joogo waqtigii la dhisi lahaa dowlad goboleedka galmudug oo bedela maamulka hadda waqtigiisu dhammaaday iyadoo dareensan wasaaradda khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii waqtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan dowlad goboleed ay wada leeyihiin wasaaraddu waxay go-aamisay qodobadan soo socda kow dhisidda guddi farsamo in la dhiso guddi farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalo madaxda dowlad goboleedka dhuuso mareeb labo tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan galmudug guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow maxamed cumar warsame afrax labo cabdulqaadir nuur caraale saddex axmed maxamed caafi afar cabdirasaaq kaahiye yuusuf shan cumar maxamuud cabdi lix xuseen cabdulle xasan toddoba maxamed daahir faarax sideed cabdinaasir geele cilmi sagaal xaliimo cabdi cali toban maxamed maxamuud cali 11 cabdirasaaq aadan warsame 12 abshir cabdiraxmaan maxamed 13 cabdirashiid cali salaad qodobka afaraad guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyey xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada maareynta iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xulitaanka xildhibaanada iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay qodobka shanaad guddiga waxaa caawinaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka galmudug qodobka lixaad waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada wada shaqayn wacan isaaq maxamed maxamuud kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wabilahi towfiiq